السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشر كان وعشركي تبانية الضباط مادة Financial Accounting. ما أنت وحن قادم دونا إلى يهدو إدمو Accounting for Merchandising. وحن قادم دونا سيديبا لو حسابية شركتها كجناع صدا علابها وحسوقة وحسيقة وحن سوق قادنا عشرة ديني هوري وحي كوكساب سنايين shirkadaha soo gudbiyo serviceka khadamaadka soo gudbiyo maanta waxaan ka hadlaynaa shirkadu intay wax soo gadatay kadib dadka wax ka sii gadaysa sidee baa wax loo xisaabiyaa horta waxaan u qaybinaynaa shirkadaha laba shirkadood baan u qaybinaynaa qaybta hore oo ah serving companies qaybta hore oo horey usoo qaadanay service companies horaan usoo qaadanay service companies provide service to earn revenue shirkadaha soo gudbiyo khadamaadka ama serviceka horaan usoo qaadanay cashiradii lasoo dhaafay oo dhan waxaan ka hadlayna waxay ahayd shirkad gudbinayso consultant marka revenue-geeda the main source for revenue is service revenue dakhligeeda oo dhan waxa uu ka soo gelayaa khadamaadka ay gudbinayso yaa ka mid ah shirkadahan soo qaadanay consultantka istishaarada bixinaya accounting firmska law firmska ayaa ka mid ah qaybta maanta aan qaadan doono waa merchandising companies buys and sells goods waxbayna soo gataan waxbayna gadaan macnaha shirkadaha ka ganacsado alaabta the main source for revenue is sales revenue marka dakhligooda maxaad ku tilmaami kartaa sales revenue dakhliga iibinta ama sales kaligeed ayaad isticmaali kartaa labadaasba waad isticmaali kartaa marka cashirka maanta aad buu muhiim u yahay laba shirkadood ayaan maanta baran doonaa sida ay wax u diiwaan gelinayaan shirkad A oo ah shirkadda wax soo gadanayso iyo shirkad B oo ah shirkadda wax laga soo gadanayo marka ugu horeysa waxaan ku bilaabi doonaa insha Allah taala shirkad A markay wax soo gadato marka wax la soo gato waxa suuragal ah waxyaalo badan inay dhacaan alaabtii la soo gatay in lagu soo celiyo inay shirkadda alaabta ay soo gadatay inay celiso purchase returns inay dhacdaan laga yaabaa waxa laga yaabaa shirkad B inay discount ku siiso macnaha waxyaalo badan ayaa marka suuragal ah inaan lacag ku soo gadano inaan macnaha deyn ku soo qaadano inaan lacagtii bixino scenarios badan ayaa suuragal ah marka maanta waa complete cashir weeye koobkii shaaha la soo qaato cashirkana uu yara dheeraan doonaa laano lama kala goyn karo isla socod wanaagsan shirkaddan operating cycle for merchandise operating cycle-kooda waa maxay marka wuxuu ka bilaabanayaa marka wuxuu ku leeyahay begins waxay ku bilaabataa with the purchase soo gadashada of merchandise and ends waxay ku dhamaataa with the collection of cash lacagta soo qabashada ama soo aruurinta lacagta from the sale of merchandise lacagtaas oo ka imaatay wax iibintii marka cycle-ka shirkadda merchandise-kana sidaasi ayaa lagu soo koobi karaa haddaba aan dhahno sidee baa loo xisaabiyaa net income-ka shirkadahan see loo xisaabiyaa isbarbar dhigid baan samaynaynaa marka waxaan horey usoo barannay shirkadda serviceka markii aan xisaabinaynay net income-keeda inay ahayd revenue oo laga jaaray expenses la helay net income maanta marka shirkadda aan qaadan doono xoogaha waxay kusoo kordhi doono laba qaybood oo ah marka hore net sale meesha revenue aan dhahaynay net sale ayaan dhahaynaa oo laga jaray cost of goods sold alaabtan aad gaday adiga kharash baa kaa galay waad soo gadatay marka kharashkii alaabtii la gaday ayaa laga jari markii hore meeshan alaab ma aalin waxa kaliya la sameynaya waxay khidmo la tashigu marka waxa weeyaan uma baahno cost of goods sold uma baahno okay markii aan net sales ka jirto minus cost of goods sold waxa ku soo baxayo equal to what gross profit waxaan ka jaraynaa marka expenses-kii baan ka jaraynaa equal to net income marka merchandise-ka shirkadahan tijaarooyinka ahi way ka ballaaran yihiin ama way ka element badan yihiin income-kooda kuwa kale income statement-ki isku mid ma aha maxay ku kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin shirkadna inventory bay leedahay oo alaabta sifa ay wax inventory-ge sifa ay wax u gado waa in ay marka hore ay wax soo gadato ayada
oo inventorygeeda alaab ku jiro alaabtaas ayay sii gadaysaa baynama kuwii hore waxa ay dadka u gudbinayaan ay ahayd service. okay arday baa wuxuu leeyahay maxaa meesha net sales loo dhahay su'aasha haddaad isweydiisay waa su'aal saxa marka waxa soo gadanaysa waa sales marka waxay ahayd in la dhaho sales revenue laakiin saleska laba mid inay dhacdaa laga yaabaa shirkadda inay discount ku siiso wixii 100,000 buu ahaa waxaa lagu dhahay 2,000 iska daa 98,000 nasiib 98,000 bixi 98,000 marka any discount waa inaad ka jirtaa minus discount kadib maxaa kale waxa suuragal ah alaabtii 100,000 in qayb ka mid ah ay halowday oo celisay returns sales purchase return aad samaynaysaa marka waxa kuu soo baxayo net sale kuu soo baxaya marka meeshaas ayaad ka bilaabaysaa net sales oo laga jaray cost of goods sold equal to gross profit minus expenses equal to net income arday kale ayaa su'aal kale isweydiinayo okay sidee baan u xisaabiyaa cost of goods sold waxaad u xisaabinaysaa sida soo socoto inta aynan xisaabinin waxaan ka hormarinaynaa types of income statement merchandise company-ga qaybtiisa wuxuu noqonaysaa marka sales revenue 169 waxaa laga jari sales discount sales return waxa ku soo baxaya net sale kadib maxaa weeye cost of goods sold kadib waxa ku soo baxaya gross profit kadib operating expenses intan isaga mid weeye marka intan isaga mid weeye ee kaliya waxay ku kala duwan yihiin qaybta hore ayay ku kala duwan yihiin okay kadib waxa ku soo baxayo net income kii ayaa ku soo baxayo shirkadda markay service ka maxaan dhahnay service revenue oo laga jaray operating total expenses operating expenses net income straightforward waa very easy okay shirkadda marka maadaama waxaan ka hadlaynaa ay tahay shirkad inventory leh oo alaab soo gadanayso kadibna sii gadayso systemka loo isticmaalo inventoryga laba nooc mid weeye in perpetual system uu yahay perpetual system iyo periodic maxay ku kala duwan yihiin macallin waxay ku kala duwan yihiin sida soo socoto perpetual system marka lagu leeyahay continually update accounting records for merchandising transaction continually update si joogto ah ayay waxay u update garaysaa accounting records diiwaanka xisaabaadka for merchandising transaction alaab soo gadashada transactionka la xiriiro alaab soo gadashada si continuously mar walba wax la soo gado waxbaa la record garaya mar walba oo wax la gadana waxbaa la record garaynaya marka si continuously ayay u update garaysaa mar walba oo wax la sii gado si continually ayay u update garaynaysaa periodic marka muxuu ga duwan yahay accounting records relating to merchandise transaction are updated only at the end of the period of the accounting period waxa ugu dawan yahay qoladan markay wax sii gadaan inventorygooda ma update garayaan waxay update garayaan taariikhda ugu dambaysa ee nihaayada periodka warbixinta maaliga marka la diyaarinayo markaasay update garaynayaan systemkan marka la isticmaalayo ama perpetual ha ahaado ama periodic waxa uu ka jawaabayaa laba su'aalood su'aasha koowaad oo ah cost of goods sold ayuu ku xisaabinayaa ama ending inventory okay now kun waxaan niri si joogto leh ayay u diiwaan gelisaa ama u update garaysaa inventoryga marka wax la sii iibinayo after each sale waxaa la rabaa in la diiwaan geliyo kharashaadkii wax aan ku soo gadanay inventoryga qiimaha uu hoos u dhacay in la diiwaan geliyo waa haddii perpetual isticmaalayo haddii periodic la isticmaalayo waxaa la sugi taariikhda ugu dambaysa sifa loo garto cost of goods sold iyo ending inventory macnaha alaabta kuu taalla ayaa tirini markaasaad waxaad dhihi alaabtaasaan gaday waxaa ii soo haray 10 baabuur bay ahaayeen hal baabuura ii soo haray marka alaabta aad gaday qiimahooda waa maxay qiimaha 9 baabuur waxa ku yaalo ending inventoryga waa qiimaha hal baabuur waa marka uu periodic yahay perpetualna mar walba oo baabuurka aad gado
waxa weeyaan diiwaangelinta waa update garaynaysa. Okay, cost of goods sold is the cost of merchandise sold. Waa qiimaha alaabta la gaday. Yaa laga gaday to customers during a period, waqtigii marka waxa weeyaan alaabtii aad ka gaday alaabtii aad ka gaday macaamiishaada. It is often the largest single expenses. Waa kharashka ugu badan ee income statement ku jiro on a merchandising income statement. يعني markaad isbarbar dhigayso مثلا tusaale ahaan mishaaraadkii aad bixisay ee kiradii guriyii aad bixisay iyo alaabta aad gaday qiimahoodii waxa ugu badan the single expenses, the largest single expenses waa cost of goods sold. The largest single expenses waxa weeyaan cost of goods sold way. Okay, inventory waa maxay? Inventory refers to product. Waxaa laga wadaa ama loo jeedaa alaabta product a company owns, alaabta ay shirkadda leedahay, unexpected ana ay filanayso to sell inay sii gado and it is normal operating. Inta ay shaqada ku jirto alaabtan u taala shirkadda ay leedahay ay rabta inay sii gado. Okay, tusaale ahaan aan dhahno shirkadda waxay soo gadatay kumbiyuutaraadka waxay u soo gadatay in ay isticmaasho. Inventory miya? Maya, inventory ma aha. Inventory waxa waa qasab ah inay shirkadda leedahay. Number 1, inay expect garaynayso ama ay filanayso inay sii gado. Waxay u soo gadatay computerka inay isticmaasho, so it's not inventory. Inventory waxa weeyaan wax ay shirkadda leedahay. Number 1. Number 2, waxay expect garaynaysaa ama filaysaa ama sugaysaa inay sii gado with the normal operations. Okay, tusaale kale shirkaddu waxay soo gadatay guri. Inventory miya? Inventory ma aha. Shirkadda ma aha intaadan dhihin iyo way tahay inventory waaye iyo inventory ma aha intaadan dhihin. Isweydii shirkadda horta awal shay guriga ma iska leedahay? Haa. Maxay u soo gadatay inay isticmaasho? Inventory ma aha. Waxay u soo gadatay inay sii gato? Waa inventory. Marka inventory marka aad rabto inaad ka jawaabto waa labada su'aal inaad isweydiiso. haddaba cost of goods sold sidee baan u xisaabiyaa? formulahan baad isticmaali. waxaad leedahay beginning inventory, bilowgii inventory wixii kugu jiray halkii baabuur hadda ay ka hadlaynay oo noo soo haray 9 baabuur baan gadnay oo lagu daray purchases during the year. waxaan sanadkan soo gadanay 5 baabuur oo kale waa lagu daray minus sanadka kale markuu dhamaaday waxa weeyaan waxaan ku hartay 2 baabuur. marka 1 baabuur oo horay noogu sii yaalay oo lagu daray 5 baabuur aan sanadkan soo gadnay oo laga jaray 2 baabuur oo hadda ku jirto. cost of goods sold waa meeqa? waxa weeyaan 4 baabuur weeye. marka qiimahooda 4 baabuur qiimahooda waxa weeyaan qiimaha 4 baabuur wuxuu noqonayaa cost of goods sold ayuu noqonayaa. marka waxa lagu dhufanayaa qiimaha aad ku soo gaday maalan ayaad ku dhufanaysaa lagu dhuftay 10 marka waxay ku noqonaysaa 40 ama si kala u dhahno waxa beginning inventory-gaaga wuxuu ahaa 10 waxa lagu daray purchasing conton ayaa soo gadatay waxa laga ending inventory-gaana wuxuu noqday 20 marka 10 oo lagu daray conton waa 60 oo laga jaray 20 meeqay noqonaysaa 40. لانه marka cost of goods sold qiimaha ayaa laga hadlayaa ee lagama hadlayo alaabta ku taalo. waa qiimaha alaabta ku taalo weeye. 4 baabuur haday tahay 4 baabuur waa meeqa qiimaheeda si aad u diiwaan geliso. annagu markii aan warbixinada diyaarinayno qiimaha alaabta ayaa weeye waxa la diiwaan gelinayo ee ma aha alaabta laftigooda ama tiradooda ma aha. okay, haddii su'aal lagu weydiiyo ka baran maxamedow waxaa lagu dhahay ending inventory noo soo saar. waxaa lagu weydiiyey ending inventory muxuu noqonayaa marka? wuxuu noqonayaa beginning balance plus purchase minus cost of goods sold. tanaan dhinacan geenay tanaan soo raray marka waxaad leedahay marka beginning inventory oo lagu daray purchases alaabteed marka soo gaday oo laga jaray cost of goods sold ending inventory. cost of goods sold meeqa ahayd? 40 ayay ahayd. mithaalka haddaan ka hadlayna beginning meequu ahaa? 10 ayuu ahaa.
meequu purchases content. Okay, toban waxa aad ku dartaa content waa 60 ka jar 40 20kii baa ku soo baxay. marka hadii mararka qaar kood ano mucaadala lagu siini mucaadalada kale ina kala soo dhaxbaxda ayaa la rabaa. marka ending inventory waxa dhigi kartaa beginning inventory oo lagu daray purchasing iskala mid yihiin waa isku mid. meeshii minus ending inventory aad dhahaysay marka aad raadinayso cost of goods sold maxaa leedahay minus cost of goods sold sifa aad u hesho ending inventory. I hope it's clear. Okay, marka laga bilaabo meeshan ilaa cashirka uu ka dhamaanayo waxa aan ka hadli doonaa laba qaybood. qaybta ugu horeysa oo ah marka aan diiwaan gelinayno shirkadda marka ayada ay wax soo gadato. alaab soo gadashadii purchaseski diiwaan gelinta purchases. Okay, iyo qaybta labaad oo ugu dambeysa cashirka diiwaan gelintii marka aan anaga wax gadno saleska ah. marka waxaan qaadanaynaa insha Allah taala laba shirkadood mid ayada ayaa wax soo gadanayso sida ay u diiwaan gelinayso ayaan qaadanaynaa kadibna shirkadii kale ay soo gadanaysay ayaan ka fiirinaynaa marka ayada shirkadan ay wax ka gaday sidee bay wax u diiwaan gelisay. cashirkeena intaas ayuu ku idlaan doonaa insha Allah taala. waa qayb muhiima jiddan ee koobkiisa hala kulayliyo firiiqna ha laga siiyo. Okay, recording purchases of merchandise diiwaan gelinta alaabta la soo gatay. Okay, made using cash or credit on account. laba mid weeye in aad lacagta markaa bixiso iyo inaad deen ku soo qaadato. waan wada ognahay macalinta waan fahanay. normally recorded goorma la diiwaan geliyaa when goods are received. marka adiga alaabta soo gadanayso ma goorma diiwaan gelinaysaa markaan alaabta aniga aan receive gareeyo alaabta aniga isoo gaadho. computeraan gatay baabuur ayaan soo gatay baabuurta markay aniga la ii keena ayaan diiwaan gelinaya. great, maxaa kaloo meesha aan la tacaamuli doonaa purchase invoice should support each credit purchase. marka adiga wax soo gadanaysa akiid ninka qofka wax ka soo gadanayso shirkad aan wax ka gadanayna hadda insha Allah taala BW audio la dhahaa supply waxa ay noo qoraysaa supply invoice ayayna siinaysaa invoice faatuura ayay ku siinaysaa. Okay, مثالك ugu horeeyaan ku bilowno marka recording purchases of merchandise. assume that on May 4th Sock Stereo purchased goods of 3,800 on account. waxay ku soo gadatay alaab ayay waxay ku soo gadatay 3,800 on account. 2 within 10 days, net within 30 days. The entry on Sock Stereo's books is marka sidee baan wax u diiwaan gelinaynaa waxbaan soo gadanay arday baa wuxuu leeyahay marka aan wax soo gadanno macalin waxaan diiwaan gelinaynaa inventorygeena kor u dhakacayo. waa runta inventory way merchandise inventory. Okay, arday kale baa wuxuu leeyahay macalin meesha on account baa la yiri markii on account anaga deen aan ku soo qaadanayno waxaan uu purchase yahay waxaan diiwaan gelinaynaa account PayPal. waa runta waa account PayPal. assume that the above purchases were paid in cash. hadda lacag hadii aan bixino isla markii aan bixino not on credit. the entry of Sock Stereo's books is marka diiwaan gelinayso macalin ma kala duwana marka ugu horeyso waa merchandise inventory. meesha account PayPal aan ka niri maxaan dhahaynaa cash aan dhahaynaa. very easy, straightforward. Okay, meeshan cashirkan qaybtan waa muhiim jiddan indhaha furo. Okay, freight cost alaabta markaad soo qaadanaysa adiga markaad soo gadato alaabta laba mid weeye. alaabta in aad adiga soo rarato iyo in aad qofka aad ka gadatay sellerka ahi qofka aad ka gadatay isaga ku soo raro ilaa uu ku kaaga keenayo xaafadaada ama dukaankaaga aan dhahno dukaankaaga. Okay, haddii ay FOB shipping point ay tahay qofka alaabta soo gatay isaga ayaa lacagta laga rabaa liano qofka waxa alaabta lagu wareejinayaa shipping point meesha alaabta looga raranayo ayuu kula wareegaya. maxay ka dhigan tahay alaabta soo raritaankeeda ilaa dukaanka meesha laga keenayo waxa qofka isaga ayaa kharashaadka iska qabo isaga ayaa isqabo. markaas waxay noqonaysaa in uu diiwaan geliyo on the inventory. waa inuu kor saaraa qarash walba oo baxay haddii uu
qofka isaga soo gatay ee kor saaran tahay waa inuu inventoryga ka kor saaraa haddii qofka laga soo gadanayo uu isaga ku keenayo ilaa dukaanka markaas waxa weeyaan ma diiwaan gelinaysay kharashaadkii soo raridda alaabta marka maxaa ku kala saaraa markii aad qofkan heshiiska la galaysay alaabta la galanaysay ka gadanaysay ayaad heshiiska ku darteen shuruudda heshiiska waxay ka mid ahayd haddaad ku heshiiseen in alaabtan uu dukaankaaga kuu geeyo haddii saa aad ku heshiisaan wax kharashaad oo diiwaan gelinaysa ma laha maxaa dhacay lianna waxa kharashka bixiyey qofka aad ka soo gadatay isaga sidee buu u diiwaan gelinayaa as a expenses ahaan buu u diiwaan gelinayaa expenses ahaan operating expenses ahaan ayuu u diiwaan gelinayaa marka wuxuu ku leeyahay freight cost terms of sales waa heshiiska ayay ku dhex jirtaa marka mid weeye fob shipping point qofka wax soo gadanaya in isaga uu alaabta raranayo sellerka alaabta waxa uu siinayaa buyerka isaga ayaa raranaya marka seller places goods free on board fob waxa laga soo gaabiyey free on board the carrier and buyer qofka soo gatay pays freight cost isaga ayaa bixinaya kharashka raridda iyo xamuulka markaas waxa weeyaan inventoryga ayuu kor saarayaa markuu diiwaan gelinayo inventoryga ayuu xambaarinayaa okay fob destination hadday tahay sellers places goods free on board to the buyer's place waa dukaankiisa of business and sellers ninka qofka wax laga soo gadanayay pays isaga ayaa bixinayo freight cost lacagtii kharashkii raridda freight cost incurred by the seller are an operating expenses ahaan ayaa loo diiwaan gelinayaa ee lama kor saarayo cost of goods sold-ka iyo inventoryga lama kor saarayo I hope it's clear hadda ka hor arday ayaa su-aasha i weydiiyey waxa uu yiri telegramka ayuu waxa su-aal uu soo qoray macalin haddii aan China wax ka soo gadano ma annaga ayaa kharashka bixinayna mise alaabta goorbay nagu soo wareegaysaa alaabta waxay kugu soo wareegaysaa marka aad ninka Chinese-ka wax ka soo gadanaysay maxaad ku heshiiseen in uu ku keeno Soomaaliya uu ku keeno Muqdisho ama Hargeysa marka alaabta meesha keenitaanka hadii ay heshiisku ku jiray waad sugaysaa ilaa oo alaabta ku keenayo hadii ay ahayd in aad ka qaadanayso shipping pointiga meesha laga soo rarayana adiga maalinka alaabta ay kugu soo wareegayso aad ka qaadato ayaa diiwaan gelinaysaa wixii kharashaad raritaanna waxaad kor saaraysaa cost of goods sold kor saaraysaa okay tusale okay assume upon delivery of the goods on May 6 Soxtiro pays freight company 150 Acme Freight Company 150 Acme Freight Company 150 for freight charges okay the entry on Soxtiro books is shirkadii wax soo gadanaysay ayaa hadda lacagta bixinayso lianna waxay noqotay fob shipping point marka maxay sameynaysaa inventoryga ayay kor saaraysaa assume upon delivery on waxaad assume garaysaa alaabtii bishii shanaad lixdeeda ay soo gadatay shirkadda Soxtiro inay bixisay lacag 150 ay bixisay shirkad kale ay siisay Acme Freight Company ay siisay 150 for freight charges the entry on Soxtiro books is merchandise inventory cash 150 okay hadii ka waran shirkadii BW ay ayada lacagta bixinayso oo Soxtiro alaabta loogu keenayo dukaankeeda loogu keenayo hadii ay sida ay dhacayso waxa weeyaan waxay noqonaysaa waxa la diiwaan gelinayaa freight out or delivery expenses cash ayuu diiwaan gelinaya marka maxay ku kala duwan yihiin markan waxaan nidhi merchandise inventory ayaan kor saarnay markan maxaan nidhi expenses caadi ayaan ka soo qaadnay assume the freight terms on the invoice in illustration 5/5 had required waxaa laga dalbaday BW Audio supply to pay the freight charges inay ayada bixiso lacagta raridda the entry by BW Audio supply will have been sidee loo diiwaan gelinaya freight out or waxaad diiwaan gelin kartaa delivery expenses kharashaadka alaabgeynta 150 iyo 150 oo cashkii lacagtii aad bixisay now
hadda alaabtii waan soo gadanay 3800 baan ku soo gadanay maxaa dhici karo waxaa dhici karo alaabtii inay qaar ka mid ah halowdo dib loo celiyo sidee baan ula tacaamulaynaa haddii alaabtii qaar ka mid ah ay halowdo oo dib loo celinayo marka wuxuu ku leeyahay purchases returns and allowances purchases may be dissatisfied waxaa laga yaabaa in uunan ka helin qofkii alaabta gatay inuunan ka helin dissatisfied because goods are damaged alaabta way halaysan tahay or defective ama alaabta way halowday damage baa soo gaaray or defective ama maba shaqaynaysaba alaabtii waa damage ayaa soo gaaray way soo halowday intii soo saarneed ama maba shaqaynayso defective way of inferior quality or do not meet specification laba mid weeye alaabta loo isticmaalay markii la sameynayay inay hooseysay alaab xun loo isticmaalay oo sidaa darteed ay dissatisfied-ka ay keentay ama waxaan u baahnayn maba ahaynba marka hore okay laba mid weeye marka tan koowaad oo ah purchase return inay alaabta la celiyo return goods for credit if the sales was made on credit macnaha haddii deyn aad ku soo qaadatay alaabtii baad celinaysaa creditkiina hoos baad u dhigaysaa okay or for a cash refund waxaad leedahay lacagta isii if the purchases was for cash haddii lacagta hore aad u bixiso waxaad leedahay lacagtii isii ayaad leedahay haddii ay lacagta marka aad lacagta bixisay waxaad leedahay lacagtii isii baad leedahay lacagtiiba dib refund aad u dalbanaysaa purchase allowance khiyaar kala jiro option kala jiray marka shirkadda in ay ku dhahdo lacagta waa lagaa dhimayaa ee alaabtan hayso meeshii 100 ay ka ahayd waxaa lagaa siinayaa 90 ee lacagta nagu soo celinin marka waxay siinaysaa shirkadda allowance deduction qiimihii ay hoos u dhigaysaa shirkadda waxaa weeyaan optionka labaad ee furan inay shirkadda qiimaha hoos u dhigto sifa kasta marka uu alaabtii u haysto shirkaddana ayna alaabta ugu soo laabanin okay may choose to keep the merchandise if the seller will grant allowance qofka customerka waxaa laga yaabaa inuu doorto alaabta inuu haysto haddii qiimo dhimis loogu sameeyo from the purchase price okay assume that on May 8 Soxtero returned waxay celisay to BW Audio Supply goods costing 300 alaab qiimaheedu uu dhan yahay 300 ayay celisay markay celisay sidee baan u diiwaan gelinayaa macallin waxaan u diiwaan gelinayaa okay macallin sidee baan u diiwaan geliyaa waxaan u diiwaan gelinayaa alaabta maxaan ku soo gadanay on account payable kii baan debit geenayaa waa runta account payable kadibna maxaa dhacayo inventory-ga maadaama on celinay inventory-gana hoos ayuu u dhacayaa markii hore muxuu ahaa debit ayuu ahaa markuu hoos u dhacana credit-ka ayuu aadayaa inventory-gii baad diiwaan gelinaysaa marka waxaad leedahay account payable merchandise inventory okay instead oo alaabta la celinayo waxaad assume garaysaa in shirkadda la siiyey allowance lacagta yani 300 la dhahay waa lagaa dhimay lacagtii aad qaadatay 3800 dollar 3800 dollar waa lagaa dhimayaa ee alaabtan hayso okay on May Soxtero was granted waxay heshay an allowance from BW Audio haddii allowance heshay maxay samaynaysaa macallin maxay samaynaysaa account payable hoos ayay u dhacaysaa waa runta merchandise inventory-na hoos ayay u dhacaysaa macallin waxba kuma kala duwano laakiin waxay ku kala duwanaan doontaa buugga qofka alaabta iibinayo waana arki doonaa insha Allah ta'ala okay is that clear okay optionkii labaad ee suuragal ah ama scenario-gii labaad tan labaad waxaa laga yaabaa in discount lagu siiyo discount ayaa mararka qaarkood laga yaabaa shirkadda wax iibinaysa inay siiso shirkadda kale credit terms may be permanent buyer to claim a cash discount for permanent payment shirkadda mararka qaarkood discountiga waxaa laga yaabaa qofka buyerka ahi in discount la siiyo hadafka laga leeyahay waxa weeyaan inuu lacagta hore uu bixiyo advantage ma maxay purchaser qofka wax gadanaya save money lacag ayuu save garaynaya seller qofka wax gadayana shortens the operating cycle meesha uu ku bixin lahaa bil iyo 2 bilood
waxaa la leeyahay haddaad bixiso 10ka beriyo ugu horeyso waxaad qaadanaysaa discount boqolkiiba 2 tusaale ahaan marka waxay dadejinaysaa in cycle-kii uu soo yaraado meeshii 2 bilood lacagta lagu bixin lahaa in lacagta lagu bixiyo within 1 month or within 10 days okay credit terms wax mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inaad aragtaan 210 waxaa laga yaabaa inaad aragtaan 210 and net 30 maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa macnaheedu waa tana 20 macnaheedu waxa weeyaan 2% cash discount 2% cash discount if payment is made within 10 days 2% cash discount if payment is made within 10 days net amount within 30 days markaad rabto inaad akhriso sidaas ayaad u akhrinaysaa participant discount terms heshiisyada la geli karo waxaa ka mid ah tii hadda aan ka hadlaynay oo ahayd 210 net 30 2% discount if pay is 2% discount if paid within 10 days otherwise net amount due within 30 days 2% lagaa dhimayaa haddii 10 beri gudahooda aad ku bixiso haddii kale lacagtoo dhan ayaad ku bixinaysaa 30 okay 1 to 10 EOM 1% discount if paid within first 10 days of the next month tan maxay ka dhigan tahay marka haddii aad bixiso bisha soo socoto 10ka beri ee ugu horeyso 1% halaad helaysaa n net 10 EOM maxay ka dhigan tahay net amount lacagta oo dhan due within the first 10 days of the next month waxaa laga rabaa 10ka beri ee ugu horeyso 10ka beri ee ugu horeysa bisha soo socoto termska marka qaabkan ayay ku suuragalaha inay ku soo marto okay now tusaale ahaan bal ka waran haddii shirkadda Sockstero paid the amount due to the BW audio supplier on 18 May hadday bixiso oo ah last day of the discount period waqtigii 10kii beri ee la siiyey maalintii ugu dambeysay hadday bixiso ka waran the journal entry will be sidan ayuu noqon doonaa the journal entry account payable waan bixinay lacagtii 3500 arday baa wuxuu leeyahay hadaaya 3800 ayay ahayd 3800 ayay ahayd xagee 3500 ay ka imaatay 3500 waxay ka imaatay ha iloobin ritaankii ay shirkadda samaysay ee ahayd 300 so return mayna samaynin ha macni runta weeye okay account payable waa maxay waa 3500 maxaan kaloo samayni waxaan samayni cash lacagta aan bixinayo maadaama oo aan ku bixinayo within the 10 days maxaan samayni waxaan samaynayaa 3500 ayaa lagu leeyahay waxaan ku dhufanayaa boqolkiiba 2 waxa soo baxday 70 discount okay discountiga marka waxaad u qorisaa inventory-gii bad yaad ka dhimaysaa okay payment-gii lacagta aan bixinayo waa meeqa 3500 oo laga jaray 70kii discount lacagta aad rabtay in la bixiyana waa 3430 labadan oo la isku darayna waxay la mid tahay waxa weeyaan account payable-kii la mid tahay okay I hope it's clear bal ka waran hadday shirkaddu bixiso full amount hadday bixiso if Sockstero failed hadday ku guuleysan wayso to take the discount hadday ka faa'iideysan wayso discount-gii and instead made full payment oo lacagtoo dhan ay bixiso of 3500 on June 3rd after the discount period the journal entry haddii shirkaddii ay ku guuleysan wayso in discount-gii ay hesho ay discount-gii ay ka faa'iideysato sidee baan u diiwaan gelinaynaa very easy weeye xisaabaad uma baahno account payable debit account payable credit what credit cash qiimihii that's all okay summary of purchasing transaction markii ugu horeysay alaabtan soo gadanay 4th of May alaabtii waan soo gadanay kadib maxaan sameynay waxaan assume garaynay in fob shipping point inay tahay alaabtii waxaan niri markii fob shipping point adiga aad soo gadanayso waa muhiim marka adiga aad soo gadanayso oo lacagta raridda adiga ku kor saaranta inventory-ga saaraysaa
haddii shirkadda kale ee laga soo gatay haddii la kor saaro maxay samaynaysaa as expenses ayay u diiwaan gelinaysaa muhiim waay fikirka inaad fahanto mar labaadan ku celinaya haddii adiga lagu kor saaro lacagta inaad bixiso lacagta kharashaadka lagu soo raraya alaabta ayna heshiisku ahaa in aad alaabta kula wareegto shipping point meesha lagu rarayo adiga inventoryga saaraysaa haddii uu heshiisku ahaa in dukaanka lagu keeno alaabta waxa weeyaan isaga wuxuu diiwaan gelinaya adiga lacag maadan bixinin isaga wuxuu diiwaan gelinaya as operating expenses okay inventoryga maxaa credit garaynay waxaan credit garaynay lacagtii aritaankii maxaa kaloo credit garaynay discountigii baan credit garaynay marka waxaan soo haray 3,580 ayuu inventorygeena noqday okay intaasi waxaa ku dhamaatay shirkadii wax soo gadanaysay hadda waxaan u tagaynaa buuga shirkadda wax gadayso sidee bay u diiwaan gelinaysaa recording sales of merchandise made for cash or credit waxa suuragala in ay deen ku bixiso ama isla markaa lacag ay ku gado normally recorded goorma recorded when on usually when goods transfer from seller to buyer marka alaabta aan ku wareejino qofkii naga gatay markaas ayaa la diiwaan geliyaa sida caadada ah maxaa marka ka dhalanayo sales invoice ka dhalanayo markii hore wuxuu ahaa purchase invoice hadda maya sales invoice way should support each credit sale okay marka aad diiwaan gelinayso journal entry-ga ugu horeeyo oo diiwaan gelinta selling-ka ah labo journal entry baa lagaga baahan yahay marka aad wax diiwaan iibinayso laba ayaa lagaga baahan yahay marka ugu horeyso in aad selling price-kii aad diiwaan geliso oo ah either hadu cash to sell or account receivable to sell iyo ina inventory update garayso cost of goods sold merchandise inventory marka aan each transaction aan update garaynayno si continually ah waxay ka dhigan tahay systemka inventoryga aad isticmaalayso inuu yahay perpetual sax perpetual isticmaalaysa hadduu aan isticmaalayno periodic waxaan sugi lahayn markuu uu noo dhamaado sanadka sifa aan u update garayno inventory-gii okay markii aad isticmaalayso perpetual waxaa laga rabaa inaad each sale oo aad samayso laba entry ayaad diiwaan gelinaysaa first cash or account receivable to sell or then waxaad diiwaan gelinaysaa cost of goods sold to merchandise inventory okay misaaladii hadda aan soo marnay weeye laakiin maxay ku kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin buuga aad fiirinayso hadda waxaan fiirinaynaa buuga wax qofkii wax gaday qof alaabti ma aha qofkii wax gatay qofkii sellerka ay wax gadayay okay isaga muxuu diiwaan gelinaya markii ugu horeysay oo alaabta aan soo gadanay 3,800 aan soo gadanay sidee buu diiwaan gelinayaa marka waana lagu siiyay qiimaheedu waxay ahayd baa lagu leeyahay 2,400 sidee buu u diiwaan gelinayaa macallin waxaa loo diiwaan gelinayaa marka annaga aan wax gadanno waxaan leenahay account receivable haye laano lacag kumuunan bixinin okay account receivable debit and what sales revenue waa runta okay waxaa la rabaa in la diiwaan geliyo oo kale waxaan nidhi marka aad perpetual isticmaalayso oo aad sale samayso wax iibiso you must record two transaction midka ugu horeyso selling transaction iyo cost transaction alaabtan ay iibisay meeqa qiimaheeda ahayd costigeeda waxay 2,400 maxaan samaynayaa macallin ma aqaano hadda ugu horeyso waxaad debit garaynaysaa cost of goods sold maxaan credit garayaa alaabtaadii waad iibisay inventory-gaagi maxaa ku dhacay hoos buu u dhacay markuu hoos u dhaca inventory-ga waa asset markuu hoos u dhaca maxaad samaynaysaa haddaan xasuustay credit aan ka dhigayaa marka maxaan samaynaynaa cost of goods sold inventory credit is that clear I hope it's clear okay waxaa suuragal ah okay markii alaabta ay soo celiyeen alaabta in la soo celiyaa suuragal ah marka flip side waa kii ka soo horjeeday of purchase returns and allowance purchase returns kii ka soo horjeeday weeye sales returns and allowance waxay ka soo horjeedaa sales returns and allowance waxay ka soo horjeedaa flip side of purchase returns and allowance number 1 way ka soo horjeedaa waxay ka soo horjeedaa purchase returns number 2 contra revenue way waa xisaab ka soo horjeedo revenue-ga waa credit markuu ka soo horjeedo muxuu noqonayaa
debit account ayuu noqonaya. Okay, sales not reduce markii alaabta lagu soo celiyo adiga sales ka ma reduce garaynaysid lama raba inaad sales ka reduce garayso sales kuma dhawaanaysid waxaad diiwaan gelinaysaa item cusub ayaa diiwaan gelinaysaa sales return la dhaho baynama inventory ga hadaaye aan reduce garaynay maxaa sababay because lagu leeyahay will obscure importance of sales waxay mugdi gelinaysaa muhiimadda sales returns يعني marka alaabta la soo celinayo waxa la rabaa in ay si separately loo diiwaan geliyo hadii aad reduce garayso saleska waxa meesha ka baxayo bandigii ahaa itemkii ahaa sales returns and allowance as a percentage of sale marka la raba hadhow in la xisaabiyo nisba ahaan meeqa percentage alaab aan iibinay ayaana la soo celiyay sifa aad u hesho waa inaad diiwaan geliso haddaad directly u reduce garayso markuu suuragal ma aha ama mugdi ayaad gelinaysaa muhiimadda sales return and allowance. Number 2 could distort comparisons between total set in different accounting period. Waxaa suuragal ah in ay dib u keento marka aad rabto inaad isbarbar dhigto total sales oo sanadaadka inaad isbarbar dhigto waxa weeyaan ayadana waxay ku keenaysaa mugdi kale ayay gelinaysaa. Okay. Prepare the entry BW audio supply will make to record the credit for return goods that had a 300 selling price. Assume a 140 cost. Assume the goods were not defective. Okay, maxaan leenahay sales return allowance. Kadibna maxaan leenahay account receivable. Account receivable ayaa hoos u dhacayso. Laano alaabta wala soo celiyay. So account receivable hoos u dhacaysa sales and returns and allowance ayaan diiwaan gelinayna. Inventory-gina waxaan leenahay merchandise inventory alaabti maadaama lagu soo celiyay inventory-ga kor bay u kacday. Cost of goods sold ki hadaayay aan hoos u dhignay ayadana waan hoos waxaan u dhigaynaa cost of goods sold ayaan hoos u dhigaynaa. Cost of goods sold ki aan hadaayay diiwaan gelinay ayaan waxaan hoos u dhigaynaa 140. Cost of goods sold waa debit way caadadiisa normalkiisa marka hoos u dhacano credit ayuu noqonayaa. Okay, assume that the return goods were defective and had a scrap value of 50. BW audio will make the following inventory. Marka waxa weeyaan sales return account receivable maadaama oo scrap ahaan aad ku sii gadi karto content inventory ay kor ayuu ku cayaa content cost of goods sold content ayuu noqonayaa. Okay. Assume Soxtiro pays the balance due of 3,500, gross invoice price of 3,800, less purchases return allowance of 300 on May 14. Hadaayay markii ay bixisay 14 bishii May ay ka faa'iideysay discount-ka weeye marka aan diiwaan gelinayno. The last day of the discount period. Prepare the journal entry BW audio supply makes to record the receipt of May 14. Cash lacag 4 maxay heshay lacag maxay gacanta ku qabatay 4,000 sorry cash maxay gacanta ku dhigtay 3,430. Okay, account receivable ki meequu ah 3,500. farqiga maxaan dhahaynaa sales discount way. Okay, haddii ay ka faa'iideysan weyso seebaan diiwaan gelinaynaa haddii ay ka faa'iideysan weyso waxaa loo diiwaan gelinayaa cash 3,500 account receivable haddii ay ka faa'iideysan weyso way meeshan marka haddii ay ku bixin weyso waqtigii discountiga ay haysatay waxaa la diiwaan gelinayaa lacagtii dhammaystirneed bay bixinaysaa 3,500 account receivable kana wuxuu ahaa 3,500 3,800 ay ahayd laakiin sales return purchases return oo 300 ah ayaa la soo celiyay ay shirkadda kale soo celisay. Okay, markii aad closing entry aad samaynayso for merchandise wax ku kala duwan ma kala duwana waa the same idea aan soo qaadanay kaliya waxa farqiga sameynay waxa weeyaan meeshii revenue aan ka dhahaynay sales waaye waxaan ula tacaamulaynaa sidii revenue credit waaye markaan xirayna dib idin geenayna waxa kaloo nagu soo biiray xisaabaad expenses waxa ku soo biiray sales discount
وحلالات تعاملها as an expenses sales return and allowance as expenses cost of goods sold كل waxa lagu daraya kuwii hore marka waxa weeyaan the same way credit markii hore debit ay ahaayeen hadda credit lagu xiraya income statement wax ku kala duwan ma laha kaliya waxa farqiga u dhaxeeya waxa weeyaan in xisaabaad cusub ay nagu soo biireen kaliya farqiga u dhaxeeya kaliya way laakiin the same concept way dib ugu laabo cashirkii dib ugu laabo ee ahaa closing interest aan ka hadlaynay the same concept weeye kaliya waxay ku kala duwan yihiin xisaabaad ayaa ku soo kordhay qaybta expenses oo ah sales discount guud baa lagaga dhigay sales discount sales return and allowance and what cost of goods sold cashirka aad buu u dheeraa aad baad ku mahadsan tahay la socodkaaga mar walba waxaad nagala socon kartaa Mustafa Xareed waxaad ku soo biiri kartaa qolkaasi Somali Accountant groupka ee ardayda ay leeyihiin ay meesha discuss ku sameeyaan haddii aad video ka heshay commentiga like share ka iloomin ardayda kalena gaarsii ee aad u malaynaysa inay u baahan yihiin intaan ku kulmayna cashirka soo socda waxaan idinkaga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh